inaanu dhawaan bilownay ama bilaabi doono inaanu dadka ajnabiga ah ee dalka jooga aanu hubino oo ogaano oo diiwaan gelino oo meelaha ay joogaan aanu ogaano marar badan waxa dhacda marka intii aanu hawshan bilaabnay in dad muwaadiniina aanu mararka qaarkood aanu kala saari weyno oo aanu markaa ku khaldano waxaanu haddaba dadka jeclaan lahayn inaanu ku wargelino in loo baahan yahay inay qaataan kaarka muwaadinka dadku inay goobahooda iyo deegaanadooda ay joogaan goboladooda ay joogaan inay ka qaataan kaarka muwaadinka oo markaa dee u noqdo wax lagu garto oo ay markaa ay markhaati u noqdaan faa'iidooyin badan oo kalena leh isdiiwaangelinta doorashooyinka iyo siyaalo kale baasaboor qaadashada iyo boqol wax oo kale oo mataqaanaa markii looga baahdo ay u baahan yihiin inay isku cadeeyaan waxaanu kaloo halkan rabnaa inaanu ka sheegno dadka ajnabiga ah ee dalka ku sugan inay isdiiwaan geliyaan oo xarumaha loogu talagalay ee loo furay khaas ahaan degmada tan maxaa la gobol caasimadda Hargeysa xarumaha looga furay dhowr meelood oo special ay ka mid tahay meesha xarun weyn oo ku taala Golchano inay iska diiwaan geliyaan oo dalka sharciga ay ku joogaan ay si loo garto waa la qabanayaa dadka waa la baarayaa iskama joogi doonaan sidoo hore dalka iskama joogi karaan marka inay isdiiwaan geliyaan oo xarunta tagaan ayaa loo baahan yahay dadka ajnabiga oo dhan dhammaan hadday suuqa joogaan iyo hadday hoteelka ka shaqeeyaan iyo hadday meel kale joogaan kulligood inay iska diiwaan geliyaan halka iyo meherada ka haysta iyo meel walba waa loogu imaanayaa suuqa waa laga qabanayaa waa la joojinayaa waa inay haystaan kaar bal halka laga siinayaa aqoonsi ah waa inay isdiiwaan geliyaan dadkaas kuwaana intaas ma u sheegaya salaamu calaykum